soo dhawaada muqdishada cusub. barnaamijkeena waxaan uga hadli doonaa muuqaalka dhabta ee xilligan ka jira caasimadda Soomaaliya. muqdisho waxaa lagu tilmaamay inay tahay magaalada labaad ee caalamka ugu soo dib u kabashada wanaagsan dhinaca kobaca marka la fiiriyo magaalooyinka burburay ee wadamada caalamka. xasabay anaga daacadan u nahay dalkeena waa dalkan ku dhalanay waa dalkan u dhalanay waa dadkan wax soo baranay inaan wax u qabanaa naga go'an taas ayaa keenayso cid kastana anaga horumar ka sameynaysa magaalada Muqdisho ama wax nagu soo kordhinayso wax shuruud ah oo aan ku xiro haba yaraatee ma jirto oo aan ahayn madaxdiisa arintiina soo dhawaad. caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho waxay ka soo kabanaysaa saameyntii ka soo gaartay burburkii colaadihii dalka soo maray iyadoo maamuladii isaga dambeeyay gobolka Banaadir uu midba meel soo gaarsiiyay horumarinta magaalada Muqdisho. muddada kooban ee uu xilka maamulka gobolka Banaadir hayo mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale waxay caasimadda gashay isbeddel wanaagsan waxaana ka socda dib u dhis ballaaran iyadoo mudnaanta koobaad ee uu magaalada Muqdisho siiyay dhismaha wadooyinka burbursan ee magaalada si loo soo celiyo hanaanka iyo isku socodka dadweynaha iyo gaadiidka. intaanan gudagelin mowduucyada kala duwan ee aan diiradda ku saarayno barnaamijkan ugu horeen aan isxasuusino khudbadihii ugu horeeyay ee uu jeediyey gudoomiyaha gobolka Banaadir isla markaasna duqa magaalada Muqdisho mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale. yool aniigsanayna jiro yoolkaas aniigsanayna waxa waaye dhowr arrimood waayo kooban waa Muqdisho oo nabad ah dadkeedana ay nabad ku naaloodaan cabsi la'aan ay magaalada meesha rabaan ay ku maraan. waxaan rabnaa Muqdisho nadiif ah oo bilicsan oo doog leh oo caasimada adduunka markaa tagtay biyo iska daalay arkaysaa la suursanay biyaas inaan keenaa rabnaa hadii ilaahay oo shubay. waxaan rabnaa Muqdisho oo aan xoog la isugu sheeganaynin hantidana aan lagu kala haysan ayaan rabnaa inaan dadka tusno. waxaan rabnaa haddii ilaa yidhaahdo Muqdisho oo ganacsigeeda iyo dhaqaalaheeda oo horumarsan yahay lana tartamayso caasimadaha kale adduunka la tartamaysa rabnaa inaan gaarno haddii ilaa yidhaahdo. dalkaaga dhiso waxay ahayd halkudhig macno badan samaysay oo uu horey ugu dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud. dadka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan waxaan rabaa inaan ugu baaqo dhiso dalkaaga. mashruucan waa mashruuc bilow ah waana run waa xaqiiqada dalkeena annagoo dhisma naga sugaya markaan annaga wax qabsano yaa muxuu ahay dadku adduunyadu ina kaalmeyn karta waa huba gudoomiyadu wuxuu waa dhismaha qalabaynti waa dhimanta waa huba berri marka dhismaha la bilaabo oo maanta dhagax dhignaahay dadkii qalabayn lahaa inay imaan doonaan dhigi doonaan annaga qalabka keenin annaga keenin.
balse iyadoo tartiib loo wajahayo mashruuca dalkaaga dhiso ayaa duqa magaalada muqdisho wuxuu ka fikiray sida ugu fudud ee bulshada ay ula jaan qaadi karaan mashruucan. anigu markaan nimidna halkudhigayaan la nimid halkudhigada aan ka nimidna ayay qayb ka tahay mashruuca dalkaaga ku dhis $1. sida la socotay madaxweynaha jamhuuriyadda wuxuu ku dhawaaqay mar hore dalkaaga dhiso. anigu waan fikiro dalkaaga dhiso waxaan isir in la furfuro ama u baahanta oo la fududeeyo in la fududeeyo ayaa waxay keentay mashruuca dalkaaga ku dhiso $1. taas waxyaabo badan ay keenaysaa. awalan cidna culays kuma aan $1 inay dhiibto maanta oo 22,000 shilin Soomaaliya u dhiganto culays kuma. qodobka labaad waxay keenaysaa in wax wada yeelasho ama wax wada lahaasho ay naga dhaxayso shacabka Soomaaliya ka dhaxayso. maxaa yeelay adiga hadda 20 dhiibto ana aan 20 dhiibo saaxiibkeena oo 20 dhiibo kana oo 20 dhiibo oo aan meel gelin waan wada leena bari ka maalin marka dadka waa ugu dhawna wayna danqinaysaa meesha shaala dadku ay aaminsanaayeen wax ka sameeyay oo kacaan ka leeyahay marka dawladda ay dhacdo la burburinayay waxaan aaminsanahay hadda kan inay dadku ay wixii leeyihiin ay noqdaan ay dadka ilaasho doonaan ayaan aaminsanahay. taas ayaa keentay marka doolar lagu diray wax badan oo noqonaya cidna dhib ku noqon maayo. taas ayaan u fikirnay waxaana nagu dhiirigelinay sida shacabku u heelay ayaa nagu dhiirigelisay markaan aragnay in shacabku u heelayeen anaguna waa dhaqan gelinay barnaamij weyn aan u sameynay xafladaan u qabanay mirihii ka soo baxana maanta dadku wax bay ka dhadhamiyeen. wadooyinka lagu tijaabiyey mashruuca dalkaaga ku dhiso $1 waxaa ka mid ahaa wadada danwadaagaha ee isku xirta isgoosyada Soobe iyo danwadaagta halkaasoo burbur xoogan uu saameeyey iyadoo gawaarida badankooda ka weecan jireen isticmaalka wadadaasi balse hadda waa wadada ugu mashquulka badan ee degmada Wadajir. waxaan ku guulaysanay guddi aan dhisno kadib waxaan la wadaagna duqa magaalada oo runtii isaguna aad iyo aad markii uu gobolka yimid gudoomiyaha gobolka loo magacaabeeba fadhiyada ugu horeeyay ee aan yeelanay aan arintan ka wada hadlaynay runtii guddigii ayaan horgeynay waan u malaynayaa in tifiga qaranka ka soo qayb gala shirkii hotel Jasiira waan hubaa oo runtii guddigii kama dambeys lagu dhawaaqay halkaasna ay ka dhalatay shaqadii dadkii u istaagi lahaa marka halkaas ayay soo martay waa dabcan fikir ilaa 2 sano la karinayay oo maanta nasiib wanaag iyadoo 2 sano ay ii buuxsantay xil ahaan ama magacaabis ahaan noo hirgala maanta laamigii midooba oo halkaan noo saaran yahay. sidoo kale wadada sayidka oo isku xirta isgoosyada Howlwadaag iyo sayidka ayaa la mid ahayd xagga burburka sida tan danwadaagaha oo kale laakiin haatan waxay ku naaloonaysaa wadada sayidka qurux iyo damaashaad iyo isku socod wanaagsan oo ay ku haystaan dadka iyo gaadiidka. saan la soconaba hadda 2 wado wadada si u burbursanayeen cid kasta ay og tahay aragtay shalay iyo maanta farqiga u dhaxeeyana cid walba idaha ay ka xadda ayaa waxay keentay inaan intaan laami ka dhigno maanta gabadhii Soomaaliyeed shalay iyadoo foosha eedo xaamilada eedo markii la soo marsiiyay ay ku dhibixisay ama ay ku dhimanaysay ama ay ku soo dilmaysay maanta iyadoo laami ay marayso shalay ay karkashin ahayd xaafadaha laakiin burbur amar hadda boqolkiiba 9 $1 ay moodada ayna sidoo ugu madaciyeen gudoomiyaha gobolka والله بس دبنا قوي ما دام أنا حوالي سوماليا هذا نحوينا اسكتوا ما شاء الله هذا إلنا ما دام هذا بجات $1 راعين إلنا حافظها دبي رفاض يسلع في الجبال سو دوين واحد بنتقص لهم هذا إلنا سأل الله سبحانه المدينة قاعدون فعلا حال وضد الأبورك الكحرير وضد البنادر سواء قرنطتك السؤال عتني الكحرير والحوين هدي الرب أنا ويحد مجرته أما بوجود ذي ودين كل حافظها مرة أنت بدنا ويح حراين قاعدون أي هذا لوجود تلقين أنا لكن وحن كنت نقرنا دتكاس اللي بعتها هيست
waan dadkoodaan abaabulnay dadkana way nala qaateen maantana waa laami waxaa u sababa marka dalka ku dhiso hadda waa la sahlay contribution dadka laga qaado dawladda hoose qayb weyn ay ka qaadatay laakiin inta badan dadka ka timid wadada sayidka inta badan dadka ka timid sidaas oo kale loo abaabulay dad ganacsataa isxilqaamay waan isabaabulay waan dhaqaajinay waa ku guulaysanay maanta alxamdulilah waddada isku xirta dekedda weyn ee magaalada muqdisho iyo isgoyska ceelgaabta ayaa iyadana qayb ka ahayd waddooyinka burbursan oo maristeeda ay gaadiidka iyo bulshada dhib ku qabeen hase ahaatee duqa magaalada muqdisho ayaa dhagax dhigay waddadaasi si loo dhiso iyadoo ugu dambayntii uu xadhig ka jaray haatanna waa waddo si caadi ah loo isticmaalo oo aan burbursanayn waddooyinka uu maamulka gobolka banaadir ku dhisay mashruuca dalkaaga ku dhiso $1 ayaa noqday kuwa ay si weyn uga mahadnaqeen shacabka Soomaaliyeed iyadoo ugu dambayntii waddooyinkaasi aan kor ku soo xusay uu xarig ka jaray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud والله ودada boolxoogay dib weyn ayaa lagu qabay haddana waxa uu arkaa mid heer sare ah ayada iyo tan kale hurdagba aniga dambuutooleeynahay waddooyinka dib baan ku qabnay bacaad iyo jabjab iyo hadda wallahi aad iyo aad ugu faraxsanahay maadaama waddada laami tahay socodku waa fududaaday meeshaan sax soo jirto waxa soconaysaa adigu 10 daqiiqo عبدالعزيز حسين والبرنامج waxaan ka mid ahay qodobada isticmaasha waddooyinkan ee hadda la dhisay guddoomiyahan waxaa leeyahay maasha allah ilaahay ha u guuleeyo kuwa dhibanna ilaahay ha u fududeeyaan dhihi karaa aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay laamiga maaragtaa meesha lagu dhisay maaragtaa markii hore iyo hadda waxyaabo badanaa ka duwan waxay ugu duwan yihiin markii hore gududa ahayd gawaarida badanaa ma soo mari jirin maantana waa gaari waxaan haysanaa laami nadiif ah laamigaasna ilaahan kuma hadinaynaa waxaan sii rajeynaa Soomaali oo dhan inay saas u wada dhisanto saana ugu faraxnay ummadda kalena ugu sii faraxday insha Allah taala waxaan soo dhaweynaynaa dadkii laamiga ka qayb qaatay inta dhistay intii maaragtaa kaalin ka qaadatay intii habees dhamaan waa u mahad celinaynaa ilaaha mahadaas kale ka soo intii maaragtaa ka qaadatay dhamaan waa u mahad celinaynaa insha Allah taala anaga ganacsigeena walba iska socdo haddana alxamdulillah rabbil caalamiin aad iyo aad u sii wanaagsanaana kulli waa dareemi kartaa meesha waxa ku soo zaayiday laami nadiif ah oo qurux badan oo bilicda waddanka ah bilicda mar walba sii zaa'ido quruxda meesha waa sii zaa'idaysaa waxaan rajeynaa insha Allah inta kala dhiman in la sii dhameystiro dhinaca kale horumarka wanaagsan ee u baahan in la xuso oo uu sameeyay duqa magaalada muqdisho mudane madaale waxaa ka mid ah dhismaha cusub ee laga hirgeliyey nawaaxiga albaabka hore ee laboorka aadan cadde ee magaalada muqdisho taas oo ay ku mahadiyeen dadweynaha Soomaaliyeed ee sugaya ehelkooda ama asxaabtooda waxaana dhismahaasi uu yahay mid dhammaystiran haddaba su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah sida uu maamulka gobolka banaadir ugu qanciyey muwaadiniinta Soomaaliyeed in mashruuca dalkaaga ku dhiso $1 uu yahay mid aamin ah oo lagu horumarin karo caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho anigu dadka haday wax nagu aaminaan haddii aan waxay nagu aaminaan dadka aan qaadin xageen geynayna waxaan dhahnay anigu kow xilka markaan la wareegayay ayaa kelmaadkii waxay ka mid ahaday karfantu jaab malaha karfantu jaab male waa hadal mafhuum oo wax laga fahmaayo oo ah waxaad qaado waa ka dhimanaysaa karfantana jaab inteeda hore loogu ridi maayo cunuga aan dhalay kow dhalana waxay cunaan ilaah baa kafaalo qaada shaqo ku mali intaan joognana noloshayna ilaah kafaalo qaada anaga marka dadkana waxaan sameeynaa markasta waa cadaynaa haddaan xaflada la isugu marno waa cadaynaa haddaan media ka hadlayna waa cadaynaa inta ku soo dhacday inta ku jirto waan cadaynaa hadda markaad weydiiso shirkadaha lacag ku soo shubo hadda ceelasha biyaha ugu dambeeyay $100,000 ku shubaan hadda 5 maalmood ka hor $100,000 ku shubaan akoonka mashruuca dalka $100 ku shubaan qola kale ay timid lacag meesha ku shubaan oo 100 ayaguna ku shubaan qola kale ay timid waan u sheegay ayaguna 120,000 ku shubaan isla markiina waxaan ku bixinaynaa jidadkan ku bixinaynaa waxa hadda ku jiro jidadkan ku bixi doona shacabka Soomaaliyeed $1 soo tuuray $20 $100 $50 iyaduna sidaas lamid ah iyaduna ay ugu jiraan marka dadkana waanu cadaynaynaa guddi oo dhalinyaro ah ayaana gacanta ku hayo oo anaga xataa maamulkeena waan iska fogeynay rag dhalinyaro gacanta ku hayo maantana ruuxa dhalinyarada ah iyo gabadha Soomaaliyeed cid kastoo maanta joogta ayaga ka amaana badan waan tijaabinay marka arinta ayaga gacanta ku hayo gabdho iyo wiilal gacanta ku hayo meeqa ku soo dhacday ayaga akoonka meeqa ku dhacday ayaga
meeqa laga bixiyay ayaga kulli masajina soo diran waxay leeyihiin akoonka maanta waxa ku soo dhacday intaasna waa laga bixiyay intaas leeyihiin taas waxay daliil u tahay marka annaga sida aan rabno inaan dadka wax ugu cadayno dhanka kale dowladda hoose xamar ayaa ololo ballaaran ku samaysay degmooyinka gobolka banaadir kaasoo ah qaadista canshuurta guryaha ku yaala caasimadda canshuurtaasi oo horey loo qaadi jiray xilligii birisimaadkii ee dowladdii dhexe ee militariga hase ahaatee dhowr iyo 20 san kadib ayuu maamulka gobolka banaadir dib u bilaabay iyadoo xilligan canshuurta guryaha loogu talagalay in lagu dhiso waddada wadnaha oo halboole u ah isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha waxaana dhismaha waddadaasi ay tahay mid ay wada dhowrayaan dadka reer muqdisho degmada xamar jab waa degmadii ugu horeysay ee soo gabagabaysay qaadista canshuurta guryaha arrinkaas wuxuu noqday arrin ummadda laga dhaadhiciyo loona sheego faa'iidada canshuurta ay leedahay sidaa ka warqabta degmada xamar jab waxaa ku nool dad muxuu ahaa asal ah oo deegaamada caasimadda ugu horreeya ka mid tahay dadkeedana dad reer guuraay ma aha waa dad degan oo guryo ku leh way yaqaanaan marka nidaamka dawliga iyo howlihiisa ay garan karaan marka hore ummaddan waxaan ka dhaadhicinay in canshuurtii jiri jirta ay garanayeen dib loo soo cusboonaysiiyo si baahida annaga aan qabno oo adeegyadii bulshada oo dhammaystiran loo sameeyo kadib waxaa bilaabatay in hawshii gacanta lala galo canshuurihina sidii loogu talagalay u dhammaadeen waxaan degmada noqotay degmada koowaad ee canshuurta gabagabaysa maadaas ilaahan u celinayna shacabka deegaanka degan iyo inta nala shaqaysana u mahadcelinayna waa dalkaaga dhisa weeye lacagtan hadda la qaadayo ee degmada hadda jaa wadajir laamiya naloo sameeyey oo laamigaas waa lacagaha ay shacabka iyo guryaha iyo dadka laga qaaday weeye dalkaaga dhisa weeye dalkayna gelaysaa marka waa aad iyo aad wax u fiican weeye waana ku qanacsanaya waana soo dhiibay canshuurta gurigayga waa bixiyey haddana aad iyo aadaan ugu qanacsanayo dalkaa wax loogu qabanaya gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho markii uu xilka la wareegay waxa uu sidoo kale muhiimad gaara siiyey nadaafadda caasimadda waxa uuna la yimaaday halkudhig uu ugu magacdaray saaxiib hagaaji hortaada taasi oo macno badan samaysay waxaana horumarinta nadaafadda ay noqotay mid aysan u kala harin madaxda qaranka maamulka gobolka banaadir saraakiisha ciidamada qalabka sida iyo odayaasha dhaqanka ee ku nool magaalada muqdisho maamulka gobolka banaadir oo uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa sidoo kale ahmiyad gaara siiyey horumarinta isdhexgalka bulshada gaar ahaan dhallinyarada haweenka iyo arrimaha bini'aadanimada waxa uu duqa magaalada muqdisho muddo kooban uu xilka hayay kadib lacag xaquuqsiin ah u bilaabay qaar ka mid a haweenkii ku naafoobay horumarinta gobolka banaadir iyo kuwa muddo fog soo shaqaynayay hase ahaatee aan horay wax xaquuqa u haysanin coley maxamed aadan da'deedu waa 60 sano jir waxayna caan ku tahay abaabulka bulshada waxayna soo shaqaynaysay ilaa xilligii birisimaadkii iyadoo aan wax xaquuqa qaadanaynin balse xilligan waxay ka mid tahay qaar ka mid a haweenka uu gudoomiyaha gobolka banaadir u bilaabay lacag ay ku helayso xaquuqdeeda waxaan la shaqeeyay gudoomiyaal badan oo gobolka banaadir waxaan ka soo bilaabay kacaankii waxaan la shaqeeyay xasan abshir waxaan ahaa kookaha oo gobolka banaadir ciyaaraha markii la gaaro maalintii uu bilaawdo ilaa maalintii la kala fasaxo gobolada naagta oo raatibka eedoo gurikeeda ee tegi jiranaana waxaan la shaqeeyay iskaashtooyinka gobolka banaadir markii sanada Oktoobarta la gaaro wanlaweynta la keenay waxaan ahaa kookaheeda waxaan ahaa kookaha oo muxuu ahaayay ururka dhalinyarada ee degmada waa bari naagta raashinka u karnayso ama ubaxa noqoto ama guulwadaha noqoto ama ceen kasta ha noqoto waxaan ahaa gurmadkii gobolada markii gurmadka la sameynay naagtii uu ahayd kookahan ahay waxaan kula jiray maxaa la dhahaye takada xerada ka horjeedaan kula jiray intaasaan soo shaqaynay gudoomiye wax ii qabta gobolka banaadirna weli ma arkin waxaa noo qabta kor allaha ka dhigee gudoomiyahayna yuusuf sheekh yuusufaa noo qabtay waxaan qaataa maanta $100 $100 oo la igu siiyo yacni kaash oo lacag Soomaaliyeed ah haddaba muxuu qabtaa xafiiska ururka haweenka gobolka banaadir maxaa isbeddel ah xilligan ka jira
noo qabtay gudoomiyaha gobolka Banaadir haweenka safarada ma aadi jirin safaradana lagu daray anigoo gudoomiyaha gobolka oo baasaboor leh waligay maana bixinin laba barasaabaan la soo shaqeeyay talaabada ugu horeysay waxay ahayd dhiirigelin haweenka ku dhiirigelinayo in ay ka mid noqdaan safarada iyo kulamada adduunyada uu la qaadanayo taas oo aan xiriir iyo saaxiibo soo yeelanay iyo dad cusub iyo madax iyo mas'uuliyiin kala duwan waa dareemaysaa sacabka iyo guuxa gadaal dhabarkayga dambe ka socda waxaan u malaynayaa waa markii saddexaad oo xaruntan aan ku qabanayno munaasabado kala duwan waxa kale oo duqa uu talaabadu qaada kamida Leyla iyo Maama Culey Leyla waa gabar yar oo xabaduhu ay naafeeyeen oo neerfayaasha dambe ka dhimatay Maama Culey oo ilaa xilligii dawladda Maxamed Siyaad Barre shaqeynaysa nolosheedana aan maartay wax la siinin xaquuq qaadanin inuu ayagu u bilaabo kale waxa kale gudoomiye ku talaabsaday lacagta gabdhaha urka haweenka gudoomiyaasha degmooyinka u qaadi jiray qof walba oo mas'uul oo maamulka $100 duu qaadanayo iyo 100 baalweyn hadii la siinayo asaga saxiixay cid wax loogu dhiibayo ma jirto oo gabdhuhu waxay heleen waxoodii oo sax ah oo gabar walba mushaarkeeda ayada qaadanayso waxay ka mid tahay dhiirigelinta ay heleen haweenka in xaquuqdooda awalna waxay ahayd qof u shaqeeya camal sida qadaamadii ayaa gudoomiyaha degmada konsolka u qaadayay maanta qof walba konsolka degmada ka mid ah xarunta oo imaanaya inuu shaqeeyo aaminsan mushaarkiisu qaadanaya xaquuqda oo la dhowro waxay kor u qaadaysaa bini'aadanimada iyo wada noolaashuhu waxay cadaalad u baahantaa marka waxaan isdhihi karaa gudoomiyaha waa gudoomiyaha cadaaladda waxaan rajaynaynaa dhanka shaqooyinka iyo horumarintana inuu haweenka ahmiyad gaar ah siin doono maamulka gobolka Banaadir ayaa xarun cusub oo balaaran u sameeyay ururka dhalinyarada gobolka Banaadir si dhalinyarada reer Muqdisho ay u noqdaan kuwa isku xiran oo xiriira waxayna qayb ka ahayd dhiirigelinta dhalinyarada gobolka Banaadir oo uu sameeyay duqa magaalada Muqdisho gudoomiyaha gobolka inuu dhalinyarada fursado badan siiyay fursadahaasi oo ah in dhalinyarada runaantii kalsooni buuxda ay ka heleen asagoo wax badan u qabtay annagoo dareensan in xaruntii dhalinyarada cusbeed oo Shangaani oo asaga barnaamijkaas oo ku xoojiyay in laga dhiso xaruntaasna ay hergasho haddana ay meel fiican marayso feeskeeda labaad le mar dhow oo bilaaban doono taas oo runaantii aan dhihi karno dhalinyarada Soomaaliyeed meeshii ay ku xirmi laayeen gobolka Banaadir dhalinyaradiisa ayay noqon doontaa iyadoo waxyaabo badan laga faa'iidayo faa'iidadaasna wax badan ay ka soo bixi doonaan runaantii waxyaabo badan ayaa ka qabsoomay xagga dhalinyarada annagoo og barnaamij oo bandhig faneed ah soo bandhignay oo ahay waxaan maalgeliyay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho asagoo taageero meeshaas naga siiyay taas oo wax badan annagana noogu faa'iideysan dhalinyarada isdhex galaan inay ka shaqeeyaan nadaafadda inay ka shaqeeyaan amniga inay ka shaqeeyaan horumarka dalka ka socdo inay waad dareemi kartaan sanadadii hore iyo sanadkan waa kala duwan yihiin taasna waxaa daliil u ah kalsoonida ay ka heleen gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Sheekh Xuseen Jimcaale annagoo u mahadceliyayno hawsha adag oo haayo iyo dhalinyarada taageerada oo u haayo runaantii lama soo koobi karo wax badan ayaan iska bedelay xagga dhalinyarada horumarada si kala duwan ee aan ku soo xusay qaybihii ugu badnaa ee barnaamijkeena waxaa aasaas u ah nabadgelyada tan iyo markii ay dowladda dhexe ee Soomaaliya ay amniga magaalada Muqdisho ku wareejisay maamulka gobolka Banaadir oo uu hogaaminayo mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale waxa uu gobolku galay isbedel wanaagsan oo dhanka amniga iyadoo dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir laga hirgeliyay barnaamij lagu xoojinayo nabadda iyo wada shaqaynta bulshada iyo laamaha amniga kaas oo ah barnaamijka diriseynta waana barnaamij ay ku horumareen wadamo badan oo caalamka saameyn ku leh qaar ka mid ah shacabka degmooyinka ku nool ayaa arrin wanaagsan ku tilmaamay hirgelinta barnaamijka diriseynta iyadoo sidoo kale maamulka degmada ay taageero fiican oo dhanka amniga ka heleen bulshada degmada ku nool waxaa jiro barnaamij la yiraahdo diriseynta oo isaga degmadan ka socdo isagana oo amniga qayb ka ah barnaamijkaas waxa ka socdaa waxa kala duwan ee degmada waaxda koobaad waaxda labaad waaxda saddexaad qaarna habeenan ka shaqeynaa sida waaxda labaad qaarna maalintii aan ka shaqeynaa sida waaxda saddexaad inta waxa dheer saldhigga iyo laamaha ammaanka sida saldhigga iyo nabad sugidda waxaan sameynaa gaafmeer oo inta u dhaxaysa maqribka iyo cishaa u badan ilaa iyo dadka meesha inuu soo wargeliyaan aan tagno oo aan markaa iyada ammaanka ku xaqiijinayno waayo barnaamij fiican oo xagga nabadgelyada lagu saxayo oo lagu ogaanayo darisaynta xagga nabadgelyada xaggeeda waxaan u arkaa barnaamij aad iyo aad u fiican oo dadku inay qofkii guriga kugu dhagan soo galo si loo ogaado si xagga amniga ama qofkii ka saa'ido ama dhibaato wato loo wargeliyo laamaha amniga ee ku shuqul leh
marka barnaamij aad iyo aad u fiican weeye mas'uuliyiinta degmadana aad iyo aad ay ugu mahadsan yihiin oo aad iyo aad barnaamijkaas ay hadda wadaan oo ku mahadsan yihiin waxaa tahay qof rayida oo degmada ku nool sidee u aragtaa adiga arrimaha nabadgelyada wallaahi nabadgelyada haddee waddankoo dhan caalamkoo dhan ay nabadgelyo xumada iska jirtaa laakiin hadda degma ahaantan in wax weyn ay ka qabteen hadda inta raggan dhallinyarada ah mutacalimiinta ay jooga degmada wax weyn ay ka bedeleen xagga nabadgelyadeeda oo aad ay u dadaalayaan kolley sidoo kale gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa ka waramaya guulaha haatan laga gaaray dhanka amniga saan la wada soconnaba baryahan isbedel fiicanaa ka jiro isbedelkaasna wax iska yimida maaha ilaahi subxaana watacaala ayaa horta nagu caawiyey naguna saaciday waxyaabaha aan qabanayno noo fududeeyey laakiin shacabka soomaaliyeed ee magaalada muqdisho degan ayaan uga mahad celinaynaa bisayl ay gaareen inay cadowgooda ay dadka ka aqoonsadaan ayaa sababtay waxqabadka marka dhawaashada shacabka amniga loo dhoweeyey ayaa sababtay isbedelka amni ee dadku ay dareemayaan laakiin shalay waxaa laga yaabaa in xayndaab u dhexeeyey shacabka iyo amniga kalsooni la-aanna ay jirtay laakiin maanta shacabku kalsooni buuxda wuxuu ku qabaa waxay sheegeenna in la qabanaayo waxna ay sheegi karaan ayay maanta kalsooni ku qabaan taasna shacabkaan uga mahad celinaynaa allah subxaana watacaala ka sukow shacabkaan uga mahad celinaynaa iyo garwaaqsatada la garwaaqsaday in shacabka uu mudan in amnigooda ayaga loo daayo hay-adaha amniguna har habeenay soo taagan ma nastaan annaguna saasaan u dul taaganna marka waxaan rajaynaynaa inta hadda aan haysanno inuu kasii fiicnaanaan rajaynayna mustaqbalka deelahayra maadaama uu sheegay maamulka gobolka banaadir muddada kooban uu xilka hayay in isbeddel dhanka horumarka ah uu gaaray haddaba hadda maxay tahay siyaasadda u qorshaysan magaalada muqdisho waxaa anaga iga go-aan haddii ilaa yiraahdo inteero un joogo wax la taaban kara inaan qabto inaan iska hadlo ma jecli waxaan jeclaa in ficil aan wax ku muujino ficilkaasaana dadku ay arki doonaan haddii ilaa yiraahdo inta karaankayga ah inaan wax qabtaan rajaynaynaa siyaasad ahana dee waa dareemi kartiin maanta shacabka muqdisho way kacsan yihiin dareen waxay qabaan xaq ma laha gobolka banaadir 3 milyan ay ku noolada Soomaaliya oo dhan ay ku noosho dawladda dhexe ay joogto maaragtay bulshadii oo dhan ay ku noosho safaaradda ay ku yaalaan xaq ma laha dareenkaas ay shacabku qabaan kaas ayaa aad iyo aad walwal igu haayo laakiin waxaan dareensanahay haddana inaysan arrintaas aysan dhaboobaynin xaq ma leh shacabka muqdisho degan xaq ma leh aqliga saliimkaana ma aqbali doono inaysan dhaboobaynin rajaynaa oo aqliga taliyaan rajay doona oo xaqa banaadir ay leedahay miiska la saaro daawadayaasheen qiimaha iyo qaayaha naga mudan ee ku nool dunida dacladeeda isla markaana la socday barnaamijkeena xiisaha badan waxaa halkaasi ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkan uga hadlaynay waxqabadka maamulka gobolka banaadir iyo isbeddelka horumarka leh ee ka jira xilligan magaalada muqdisho